waraysi la yeelanayna xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane xildhibaan markii ugu horeysa ku soo dhawow Goobjoog TV waa ku dhawahay waana mahadsantiin Goobjoog shaqada wanaagsan iyo hawsha aad u haysin ummadda marka xigta waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa aan ku weydiina waxay tahay mudane waxaad sheegteen in arrimaha galmudug siyaasadda taagan ee dawladda Soomaaliya faragelin ku hayso hadda xagee wax marayaan hadda waxa ma ana sheegina waxay ahayd xaqiiqan dul istaagnay waxay wax marayaan hadda in maaragtay waawaantii aan wadnay la carqaladeeyay waxaan maraynaa in la isku dayay in xasiloonidii deegaankan ka jirtay in lagu maaragtay xadgudbo oo dagaalo iyo colaado laga sameeyo oo lacagta dawladda lagu soo kiciyo maleeshiyaad iyo ciidamo meelo kala degan waxaan ku guuleysanay ciidamadii magaalada ka saarno waxaan ku guuleysanay inaan xasradii deganeyd iyo tensionkii tirada badnaa inaan maaragtay dejinno waxaan ku guuleysan doonaa insha Allah in aeroboorada galmudug la furo oo kol dhow la furo oo aan kala hadalnay madaxweynihii inuu warqad kala soo saaro arrintaas maaragtay xaaladda sideedii hore ku soo celiyo waxaan ku guuleysanay inaan odayaashii dhaqanka iska lahaa waxna ka halaabayeen inaan mas'uuliyadooda dareensiino iyagana furihii xalka aan u dhiibno waxaan kaloo runtii maamulka dhinacyadiisa hadda isku haya iyagana aan la kulannay saakay oo ugu dambeysay aan ku baraarujinayna inay ilaaliyaan xasiloonida wixii khilaaf oo jirana wada hadal iyo xal lagu dhameeyo maadaama aad tihiin xildhibaanadii federaalka ee galmudug matalaya laga doortay cadaado ka hor eedeymahan aad jeedinaysaan ma kala hadashay arrinta taagan dawladda horta dawladdan ka tirsanna annaga hay'adda ugu weyn oo dawladdan nahay baarlamaanku waa hay'adda ugu ballaaran saddex hay-adood bay dawladdu ka kooban tahay fulinta iyo sharci dejinta iyo garsoorka annagu hay'addii ugu ballaarneyd baan nahay oo dawladdan ka tirsannahay laakiin xukuumaddan u malaynaya inay ula jeedid iyo madaxda maaragtay hadda xukuumadda hogaamisa arrintaas waan kala hadalnay madaxweynahan u qaabilnay annagoo xildhibaano ah oo guddiyo loo saaray waxaan la kulannay wasiirada qaarkood inaan xaaladdan dejinno aan looga sii darin oo maaragtay aan dabkii iyo dhibaatadii abaarihii iyo dagaaladii iyo colaadihii jiray deegaamada galmudug ka jiray iyo dowlad goboleedka curdinahoo madaxweynuhu hadda dhow la doortay inaan khilaaf iyo shiddo laga shaqayn xoolaha dawladdan aan lagu fangarayn arrintaas madaxweynaha waan kala hadalnay wuxuuna runtii nagu yidhi dee kolley dad wax kala dhexeeyeen baan kala soo tashanayaa buu yidhi wax jawaabana naguma soo celinoo waxay noogu muuqatay inuu ku faraxsan yahay wax galmudug ka socota maxaa caddeemo u haysaan eedeymahan aad leedihiin dawladda Soomaaliya galmudug arrimeed ayay faragelinaysaa siyaasadaha taagan in cirka isku sii shareeyaan ayda ka dambeysay arrimahaas maxaa caddeemo u haysaan waa fududahay saddex cadeymood oo banaanka taala jirta wasiiradii dawladda ayaa si public lah oo muuqata oo cad uga shaqeynaya arrintan khilaafka ay jirtay iyaga murashaxiin iyo soo diray lacagtii dawladda oo qasnadaha dawladda ka socotay oo ognahay xajmiga ay leegtahay milyan iyo lacag badan ayaa loo soo diray deegaankan oo xildhibaanadii lagu laaluushaya oo shacabkii lagu laaluushaya oo ciidamadii la siinaya oo ummadii in la soo horkeeno looga shaqeynaya arrinta xigtana waxay tahay mar shir ka dhacay hoteelada kamid ah oo xildhibaanadu ay yiraahdeen madaxweynaha ridna 10 daqiiqo miya ama 20 daqiiqo kadib wasaaradda arrimaha gudaha wasiir dawluhu warqad buu iska soo saaray oo leeyahay waxaasan ictiraafsana marka waa wax iska muuqda oo iska cad oo qayaxan xataa maaragtay in la dabool xitaa in la saaray ku roonayd ilaa hadda waxa kale oo daliil ah inaysan wasaaradda arrimaha gudaha iyo ra'iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyadoo khilaaf deegaamadii galmudug ay ka soo jeedeen oo khilaaf ka jiro inaysan wax faragelina wax kalimada inaysan ka dhiiman sidaas awgeed ay u muuqdaan badadan غير mas'uuliinaba oo mas'uuliyaddu ku culus tahay in ummadan u hayaan waayo hoostaada waxa ka dhacaya waxay ugu yaraan inaad haddaad mas'uuliyad dareemaysid dalkan inaad mas'uul ka tahay inaad maaragtay ka gilgilato oo xalkooda qayb ka noqoto laakiin waxaan arkaynaa inaysan wax dhow iyo wax dheer intaba aysan u damqayn taasna waxay noo muujinaysaa mas'uuliyadooda calaamad su'aal saaraysa waa gartay maxay tahay wax galmudug gaar ka ah oo dawladda dhexe u beegsanaysa ileen bilowgii khilaafku wuxuu ka bilowday arinta
wadamada khaliijka galmudug maamul goboleedyo kale ayaa uga horeeyay maxaas leedahay galmudug wax gaar ah ayaa ka boon hirshabeelle ka bilaabatay madaxweynihii hirshabeelle dowladdii federaalka ahayd bay wax isku fahmi waayeen waa kii iclaamiyey shir inuu balcad ku qabanayo aayaha muqdisho iyo waxaas looga hadlayay gobolka banaadir dekadda ceelmacan baan furayna waa kii yidhi isla markiiba weerar iyo duulaan bay ku qaadeen lacagihii bay ka gooyeen maamulka lacagana waa ku bixiyeen baabuurtii dowladda ciidankii dowladda kulli ayay ku fasaxeen sidii loogaabana looga qaaday marka galmudug waxay noqotay maamulka kaloo nugul oo aadka u jilicsan oo shakhsiyaad calooshow shaqaystayaalana laga heli karo oo maaragtay carqaladeeya maamulkoodii isla markaasna maamulkuna dee maamul aad u baahay oo maahanoo deegaamada galmudug waa la ogyahay qayb khilaafaad bay ku jirtaa qayb al-shabaab baa haysata qayb ahlu sunna ka talisa marka meel yaroo nugulo waxay ahayd runtii ay is yidhaahdeen haddaad ku yaacdaan maalin baad uga soo jeesan kartaan marka laakiin lafay ku noqotay oo way ku adkaatay runtii wayna ku fadeexoobeen oo bannaanka yimaadeen arrimaha daliilka u ah dowladdu inay faragelisay waxaa ka mid ah qaybtii 12aad baa nin musharax iyo hotel loo adeegsado ay leeyihiin madaxweynaha amar lagu soo siiyey inaan ilaalinno iyo ciidamada kale oo niise qaarkood oo amar lagu soo siiyey madaxdooda inay ilaaliyaan ninka kan waa gartay laftigiina xildhibaanada labada aqal ka kooban ee yimid cadaado waxaa laydinku eedeynayaa in aadan dhexdhexaad ka ahaynina arrimaha jira ee galmudug oo hal dhinacaad la safateen arrintaas maxaa kaga jawaabaysa horta arrintaas waxaan uga jawaabaynaa annaga mas-uuliyad baa naga saaran waana ka doortay meeshaan mana noqon karno sida dowladoo kale oo xukuumadoo kale oo iska aamusanoo madaxweynihii ra'iisul wasaarihii oo kale oo iska aamusanoo muska madaxa ku haya hoostana wax ka shidaya ma noqon karno annagu waan nimid waxaan la kulannay dhinacyadiisa ayaan la kulannay waxaan u bandhignay xalkii baan u bandhignay waxaa naga diiday qayb ka mid a intaasaana sheegnay wax kaloo hadda dhexdhexaadnimo aan uga baxno ma jirin wixii aan ku aragnay iyo faragelintii lagu hayay iyo ayaga laftirkooda inay qirteen in shirko ay yihiin niman dowladda dhexe ka tirsan halkaasna laga soo wacayo xalkuna halkaas jiro marka wax hadda annagu aan dhinac ku noqonnay ma jirto dadka galmudug inay dhintaan baan u diidnay ma dhexdhexaadba ma dhexdhexaadnimadii baan uga baxnay oo ciidamo isku duldiriraan magaaladii degganayd waxaan u diidnay in khilaafkani uu inta faraha ka baxo maamul la'aan iyo fawdo uu noqdo waxaan leenahay dadkii ha loo furo maaragtay ayrboorradii si dadka xanuunsanaya dadka kale uga soo degaan marka meel aan dhexdhexaadnimadii uga baxnay ma jirto wax hadda aan dhinac la safan karnana ma jirto haddiina la tuhmayana waxay dhanka kaloo hadda wax raadinayo madaxweynaha iyo ka soo horjeeda ayaanba markii hore inteenna badan ay garab taagnaayeen markuu murashax ahaa marka hadda waxaad moodaa shirka lamaan ahayn annagu madaxweyne xaaf waxaan shirka la ahayn waagii hore ninka kan baan dhinaciisa loo janjeeray dad badan oo ka mida laakiin runtii dee markii ay dhacday in maamul 5 bilood jira la damcay in laga takhaluso la saqiir suujiyo taas marka waan ka dhiidhinay anagu deegaankan u danaynayna waa gartay xildhibaanada galmudug waxay qaadeen tallaabooyin dhowr oo saddexdii mas'uul ugu sareysay deegaanka waxay sheegeen in siyaabo kala duwan ay xilka uga qaadeen arrintaas sidee u aragtaa arrintaas waxaan u arkaa hay'adaha dastuuriga ahi way doodi karaan way murmi karaan waanana way soo saari karaan waxaan aaminsanahay maxkamad bay leedahay meeshan maxkamad sare leedahay in maxkamadda sare loo gudbiyo wixii saxan ayagu soo sheegaan waa gartay waxaa jirta cabsi ah in galmudug ay arrimaha socda ku burburto xildhibaanada federaalka ku matala galmudugaad ka mid tahay weliba dadka deegaanku ay indhaha ku hayaan in wax oon laga bedelo bal rajadiinna ku aadan arrimahan in xal laga gaaro maxay tahay waxaan leenahay galmudug burburi mayso inta aan soo jeedno taagannahay ma burburayso laakiin in dhabankeeda dhulka la dhigo waa la isku dayay dadka qaar hadday ahaan lahayd siday u rabaanna maba soo gaarteenba hadda way u geegsanaysaa maamulladuna turaanturooyin iyo caqabado way la soo gudboonaadaan mid ka mid ah duulaankan madaxtooyada villa soomaaliya ee ku soo duushay galmudugna waxaan aaminsanahay inay iska celin doonto meeshaan galmudug la yidhaahdo haddii madaxweyne farmaajo yaqaano iyo xasan khayre waa meeshii dadkeeda ciidanka dowladda iyo kaarayaashii iyo beebayaashii markii loo adeegsaday in qabaa'il lagu doodsiiyo meesha dowladda dhexe dumisay waa farmaajo waxaan leenahay inuu taariikhda dib u raaco inuusan ku degdegin inuu hadda maamulada jira waxaan maqlay south west bay haddana ku mashquulsan yihiin galmudug hadda xoogaha waa ayadii waan isku mashquulinay xaggan aadayna intaan aadaynaa yuusan sababin inuu dadkan isugu geeyo mar labaad xamar
oo wixii xilka lahaa ee laga soo gudbay ee maaragtay dadka Soomaaliyeed ay ku bogsadeen inuu mar labaad dawladdii dhexe oo cadow ku ah shacabkeedii inuusan sabab dawlad dimuqraadiga meesha joogta dictatorship ma jiro dawladda dimuqraadiga dadka galmudug baa ugu farxad badnaa madaxweyne Farmaajo 8 February inuu soo baxo annaga ahayn xildhibaanadii dooranay marka wuxuu iska dhadhacsiyay baan isleeyahay wax kale iska dhadhacsiyay xogaa yar oo lacag oo qadar laga keenay iyo waxaas galmudug ma dudumin karaan bal isagay dib ugu jirtaa baan isleenahay oo dhibaat wuxuu ka dheefi doonaa inuu isaga kursigiisa la isugu tago marka u dambaysa waa gartay haddii xaaladdu sidaan ku sii socoto waxaa jirta cabsi ah in dagaal cadaad ay ka dhacaan oo hadda xarun ku meel gaar ah galmudug arrimahaas maxaa isleedihiin horta ciidamadii inta badan annagu waa ka bixinay ciidan hadda suurta fadhiyana ma jiraan wax la isku dagaalana ma jiraan khilaafka jirana ma khuseeyo ciidanku waa inay dhexdhexaad ka noqdaan siyaasadda ciidanku shaqo kuma leh siyaasadda Soomaaliya waxaa la bartay saraakiil iska agtaagan madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaasha adduunka casriga oo hadda aan ku noolnahay ciidanku waa separate from maaragtay dadka powerka hayso way ka baxsan yihiin umana dhawaadaan waxaan leenahay ciidankaanina waa ciidan og khasaaraha imaan kara haddii isku dhacyo yimaadaan laakiin waxaan runtii hadda ku faraxsannahay inay odayaashii dhaqanka ee degmada Cadaado iyo odayaashii galmudug intay isku yimaadeen inay go'aan gaareen inaan maleeshiya iyo ciidan soo galin degmada Cadaado inaan halkaan lagu duldurin inaan ciidan aan maamulka madaxweynuhuusan ogeyn inuusan halkaan imaan hadduu yimaadana in dadka shacabka ay meel uga soo wareejeystaan magaaladan Cadaado taariikhdeedana waxaan ognahay in shabaab hadda ka hor intay wax ku dileen orod inta dadkii ordeen oo ka dabayaaceen ayagu ordayay inay soo qabteen oo meeshii lagu dilay dadkii wax ku dilay oo shabaabka marka waxaan isleenahay ciidankanina taariikhdaas way og yihiin haddana dadkii waa dhiiran yihiin qof ogol inuu gurigiisa ka qaxo ma jiro intuu qaxi lahaa wuxuu iska qabanayaa cidda arintaas rabta amni darro iyo qalqal inay magaaladooda ku beerto marka wacyi weyn baa jira odayaasha dhaqanka iyo kulliyo ay hadda wadaan xildhibaanada galmudug ee sheegay in xilka ka qaaday madaxweyne xaaf waxay kugu eedeeyeen amaba in ku eedeeyeen in dawladda dhexe aad mucaarad ku tihiin halkaan u imaateen inaad kala dagaalantaan arrintaas balka war dawladda dhexe doodeeda idinka idima taalo difaaceedu idima yaalla waxa idin yaalla maamulkiinaan yarkaayo curdinkaayo halka magaalo hadda jooga oo maaragtay inaynan inta ku kala tagtiin inta gacmihiina ku dumisiin inayna ku eedeen cid kale ama idinkoo cid kale difaacaya inayna kiinay dumin annagu waxaan iri gacmahan qabanay xildhibaanadii waa la kulanay adeerayaal oo maamulkiina iska duminina marka maamulkaada ha dumin miyaan Farmaajo mucaarad ugu nahay haddaan mucaarad ku nahay macnihii waxay muujinayaan marqaatibeeta Farmaajo wuxuu rabaa maamulka inuu dumiyo marka inuu dumiyaan ka soo horjeednaa way marka ayagaaba afkooda ku qiranayaba annagu mucaarad iyo muxaafid waxaan rabnaa baan noqono waxaan rabnaa galmudug inay taagnaato galmudug madaxweynaheeda hadda joogaahi inuu sii joogo gudoomiyaheedu inuu sii joogo baarlamaanku madaxweyne ku-xigeenkeedu inuu sii joogo waxaan wadnay halkaas ahayd khilaafkan dibadda laga keenayana in laga cesho halkaasaan annagu mabda'eennu halkaasuu ahaa waxaan u soo bandhignana kaasuu ahaa iyagaan kala telinayna inay maamulkooda dumiyaan waxaan isleeyahay eedayntaasi waa eedayn loo soo dhiibayo nimanku dee waxayba ku shaqaynayaanba maskax kale ayaaba laga yaabaa markayna eedaynayaan maskaxdooda inay isku shaqaan xataa waxay sheegayaan uma kontroolna waxay ahayd inay yidhaahdaan galmudug bay duminayaan maanta inayna yidhaahdaan bayba ahayd haddayba waxna leeyihiin waayo galmudugna ma duminayna waa badbaadinayna sidee u aragta xalka waxaan u arkaa aniga markaan soo duubduubo dowladda federaalka faragelinta ay ku hayso inay ka joojiso xoolaha qaranka loogu talagalay in laga daayo laaluushka iyo musuqmaasuqa iyo burburinta maamulada in wixii khilaafa ee galmudug gudaheeda la dhammeeyo in dawladda dhexe iyo galmudug haddii khilaaf ka dhexeeyo la dhammeeyo in maamul goboleedyada kale iyo dawladda dhexe la dhammeeyo in meeshay ugu yimaadeen dalkan waxaan ka rabnaa doorasho 2020 laakiin qaabkan duminta iyo qaska maamulada laga wado waxay sababayaan inay kursiga rabaan inay sii joogaan inay sanawaad kale ku darsadaan wayna iska muuqataa adeerayaalow shaqada idiin taalla waa dastuurka inaad dhammaystirtaan inaad ciidamada amisom 2018 baxaya ciidamadii bedeli lahaa dhistaan inaad dalka u diyaarisaan doorasho qof iyo cod ah sanadka 2020 shaqooyinkoodii oo dhan waa iska soo laalaabeen
waxay u soo jihaysteen wixii jira oo yareerka ahaayo xoogga lagu dhisayo 2 sano ayaa la dhisayay galmudug halkaana fadhina bacaadkan gaalkacyo iyo waxaan u dhaxaynaa Cadaadii iyo Dhuusamareeb iyo gaalkacyo iyo Cabuud Waaqiyo loo kala dabqaaday xiraale in maanta la yiraahdo ay u soo laalaabtaan inay dumiyaan waxa muujinaysaa in mas'uuliyaddii laga sugayo dhan ay dayaceen marka waxaan leenahay dawladda dhaxana ka daaya faragelinta galmudug hal isku daayo odayaasheeda dhaqanku way xallin karaan arrimaha jira ciidamadan iyo dadkan la isku seefeynayna laga joojiyo annagu xalka waxaan u aragnaa maamulku inuu sidiisii ahaado dawladda dhexe ee galmudugna sidii ay isku ahaayeen ay noqdaan faragelinta ayna ababa'daana la joojiyo sidaan ay wax ku wadaanna waxba kuma soconayaan galmudugna madaxweynuhu ma samayn karaan ay ayagu wataan oo غير sharciya oo si sharci darro ah kii jirana si sharci darro ah laguma cayrin karo waxaan aaminsanahay marka inta miyirsadaan oo miirkooda qaataan inay arinta banooniga dhulka dhigaan waa mahadsantahay xildhibaan maxay tahay talada aad u jeedinayso bulshada galmudug ee la xiriirta arrimahan jira reer galmudug runtii diasporada dadka qurba joogta oo mahad celinaya dareenkooda aad u fiican yahay adeerayaalow waxa way waxa meeshan ka socda ma qurxoona waxa weeye niman madaxtooyada oo cayaar isaga jira oo aan bagaranayn ummaddu waxay ku nooshahay dadka biyeelaan bay u dhimanayaan xoolihii waa baqtiyeen waa dhinteen meeshan deegaankan colaado ayaa 4 barjeey ka xiga dib u heshiisiin la'aan baa ka jirta oo deegaamadii qayb badan waxay ku maqan yihiin dib u heshiisiin la'aan meeshii la raba shaqadaas in la qabto rag shaqo kala qabanayo maamulka yara duminaya ayaa filla Soomaaliya noo soo fariistay waxaan leenahay dadka galmudug isku duubnaada meel uga soo wada jeesta inaad badbaadsatiin mustaqbalkiina iyo masiirkiina iyo deegaankiina iyo dhulkiina iyo maamulkiina intaba muujiya dareenkiina isku kalsoonaada cidda idinka duminaysana fartaha lagu wada fiiqo midda kale maamulkani maamul curdina weeye loo soo gurmado hala taakuleeyo lacagtii yarayd oo la siin lahaa si kaloo laaluush ayaa lagu soo bixiyay 3 bilood 150 kun oo dawladdu ay siin jirtay lama siin markaasaa malaayiin lacag inta la soo raray baa la rabaa in lagu dumiyo meeshii la rabay maamulka la tamantaabo oo maaragtay lacag la siiyo oo dawladdu ay taakulayso marka taakuleeya maamulkiina naftiina iyo lacagtaad cunaysiinna ka gooya qayb ka gooya una soo dira ciidamada shaqaynaya oo heeganka ku jira maamulkiina la raba in la dhaawaco iyo horumarinta deegaamadiina intaba caawiya ayaan leenahay difaacdana muujiyana dareenkiina meel kasta aad joogtiin xildhibaanada galmudug ee sheegeen xilka ka qaaday madaxweyne xaaf waxay kugu eedeeyeen amaba in ku eedeeyeen in dawladda dhexe aad mucaarad ku tihiin halkaan u imaateen inaad la kala dagaalantaan arrintaas balka war nin maamulkiisii duminaya oo aduguba sheegaysidba madaxweynihiisii duminaya inuu qof kale ku tilmaamo mucaarad waa caqli xumatan ugu liidata waay marka waxaan leenahay anagu ayagu madaxweyne farmaajo wakiilka ma ahan haddaan mucaarad ku noqonayno iyo haddaan muxaafid ku noqonayno wax noo yaallo way annaga farmaajona isagaaba hadda mucaaradii u yeeranayo dalka raba dadkii inuu kiciyo raba marka waxaan leenahay adeerayaalow maamulkiina yarka ilaalsada danihiina garta waa gartay haddii aynu halkaas ka gudubno arrimaha galmudug waxaa ka mid tahay sida dadku ay qabaan xildhibaanadii inuu madaxweyne farmaajo soo baxay sababtoo ah maxaa isbedelay hadda dadka dawladda sida weyn ugu kaxsano mucaarad ku ahaad ka mid tahay ma ballanqaadyo ayaa jira lagaaga baxay see wax u jiraan maya taasi waa iska hadal hoosaad ballanqaadna lakaga baxayna ma jiro mucaaradna kuma hay dawladda farmaajo waxaan isku mucaaradsannahay gurigaadii baan duminayaa iyo dumin maysa adeero meeshaan arrinta galmudug weliga ma jirto arrinta qalbi dhagax oo khiyaano qaran ahayd ayaa ugu horreeyey farmaajo hadalan ka hadla aniga arrintaas nin muwaadina Soomaaliya sarkaal ciidamada qalabka sida dalkiisii ku nool inuu inta qabto calanka hoostiisii xaruntii SYL ee Muqdisho oo ku wareejiyo dawlad kale asagoon wax idana uga haysan maxkamadii aysan xukumin sharci lagu dhiibaana aysan jirin arrinta koowaad aan isku dhacnay arrintii Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax khiyaano qaran bay ahayd wixii aan ku doorannay shacabka Soomaaliyeed ku aamineen maahan arrintaas marka xisaabteedii waa dambaysaa oo baarlamaanka Soomaaliya taala arrinta labaad taas laga soo gudbo xukuumihii iyo buulasheenii yaryaraabo damca inuu dab ku qabto lacagtii qadar uu ka soo qaatay oo
dee laaluush iyo dhaqan xumo iyo corruption baan la dirirayaa iyo mabaadi'dii iyo wixii aan ku dooranay waxay ahayd wadaniyad waxay tahay muwaadinka number 1 dalka number 2 qodobka kalena waxay ahayd xasilooni iyo nabadgelyo inuu keeno xasilooni iska daaya hadeertaan buu dee buulashi ayuu dab ku shidayaa marka intaas haddaan kaga hor nimid xaq baan u leenahay waxaana weeye dee wixii aan u dhaaranay laakiin farmaajo sida kale wax mucaaradnimo ah oo aan ku hayno iyo wax abaabul aan ku hayno ma jirto laakiin dhaqan xumadiisa uu la soo baxay unbay tahay waxaan hadda aan diidanna mana ka yeeli doonno dalkaana dhib badan buu ka soo bogsaday dhibkaasuu ka soo bogsadayna waxaa laga soo maray dhibaatay dhiig iyo dheecaan iyo nuxur iyo ummad baa ku dhimatay kuna barakacday haddeertaan inta noo soo nastay oo asagoo diaspora iska ahay oo dalka noo yimid inuu meeshii ka bilaabo ay joogtay ma ka yeelayno mucaaradnimana maahana waxaan leenahay maamulkeena noo daa xagga kalena ninka muwaadinka dadka muwaadiniinta ah naga dhoofin labadaas shay adigu waa garan kartaa haddii aan ku qaldannahay haddii kale aad iyo aad buu mahadsiya waxa uu ahaa xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka tirsan golaha shacabka dowladda Soomaaliya oo aan ku wareysanay magaalada Cadaado xildhibaan thank you